19 Oktoobar waxaa jira doorashooyin Nederlaan ah. Laakiin waa maxay doorashooyinkaas iyo maxaa rabaan xisbiyada doorashadaas ka qayb galay? Doorashada Nederlaan ah ayaa dhacay kadib markii hogaamiyaha baarlamaanka ee PVV Geert Wilders uu ka tagay golahiisa wasiirada. Ik heb de minister-president net ook laten weten dat ik de PVV-bewindslieden uit het kabinet zal terugtrekken. En dat wij hier geen verantwoordelijkheid meer voor kunnen dragen. Ik heb getekend voor het strengste asielbeleid, niet voor de ondergang van Nederland. En dat onze verantwoordelijkheid voor dit kabinet houdt dan ook op dit moment op. Meneer Wilders. Waxayna hay doorashadan ka qayb galay labaanta xisbi. Waxaan ku sheegi doonaa kuwa ay yihiin. Marka hore, Xisbiga Xoriyadda ee Geert Wilders oo ah xisbi wadani ah oo qarabka Bidix ah isla markaa ka soo horjeeda diinta Islaamka. Waxay rabaan mamnuuci hadalka Islaamka, dadka Holland marka hore, hiraarka socdaalka adag, daryeelka caafimaadka iyo inta la awoodi karo, jecla Israa'iil na Falastiin. Xisbiga higa ee ka dambeynka PVV waa Frans Timmermans PVDA GroenLinks, xisbi Bidix fog oo taageera cimilada. Tani waxay rabaan cadaaladda cimilada, ilaalinta bulshada, fursado siman, ka soo horjeeda takoorka, guryo badan, beeralayaal. Marka waxaan haysanaa CDA, xisbi Dimuqraadiga ah oo Masiixi ah. Hogaamiyahaas oo ay Henry Bontebal. Tani waxay rabaan guryo la awoodi karo, si dhab ah hooga shaqeeya cimilada, xakamaynta socdaalka, beeraha iyo dabeecadda hoggaan, daryeel iyo bulsho. Marka waxaan haysanaa PVDA ee naagta Yesugus. Tani waxay rabaan guryo la awoodi karo iyo qabaysa, dhaqaalaha hoggaan iyo ganacsiga, si dhab ah looga shaqeeyo cimilada, soo galootiga iyo isdhexgalka, amniga iyo sharciga. Ugu dambeyntii waxaa leenahay Denk, xisbiga Muslimka Steven van Balen. Waxay rabaan dimuqraadiyad iyo sinaan, la dagaalanka takoorka iyo cunsuriyadda, daryeelka bulshada iyo sinaanta, xakiyanta xuquuqda aadanaha, iskaashi iyo wada noolaansho. Taasina waxay ahayd dhammaan ka dawoon natiijada fiidkii Axadda 2 November halkan Dala Production. Waa mahadsantiin, kulliga waa mahadsantiin.